السلام عليكم. arday waan salaamayaa. Waxaan doonayaa halkan inaan ku sharaxo chapter 6 qaybtiisii labaad. waayo waxaan qaybta hore ayaan u sharaxnay inagoo ka bilownay cudurradan kan la yidhaahdo badiisha ka bilownay til aynu ka gaarnay dhammaadka. marka halkan waxaan doonayaa inaan mar labaad ku sharaxo laba disease soo harsanaa oo ka ugu muhiimsan uu yahay coccidioska, ka kalena aan si kooban u yara dul maro oo ah maadaama uu ku jiro curriculumkeeda ugu jiro baalka la yidhaahdo trypanosomiaska. marka chapterka wuxuu ka hadlaya waa chapterka lixaad oo waa protozoan iyo rickettsia ah. protozoan waxa weeyaan waa parasite single cellida weeyaan inay ka dhigo. marka labadaas ayuu ka hadlayaa cudurrada ay dhaliyaan actually inta badan. chapterku sidiisaba waxba ugu muhiimsan oo ka hadlaysa aynu sheegnay waxa weeyaan waa coccidiosis cudurka la yidhaahdo iyo trypanosoma. trypanosomaha waan u iman doonaa, laakiin waxaan doonayaa dib ka dhigay inaan dul maro baalka loo yaqaano coccidioska. muxuu yahay haddaba coccidiosis? coccidiosis waxa weeyaan waa protozoan disease that affect animals GI tract or maybe poultry. sidoo kale digaagana waa ku dhacmaha xoolaha oo kaliya. marka waa xanuun uu dhaliyo coccidio bahalkan la yidhaahdo protozoan uu dhaliyo, gaar ahaan jinaska la yidhaahdo avicomplexa jinas la yidhaahdo oo protozoan ah, kaas oo ku dhaca intan GI tract particularly wuxuu si gaar ah ugu dhacaa mindhicirrada intan la yidhaahdo ayuu ku dhacaa. marka neefku marka uu ku dhaco waxaa ka muuqda astaamo fara badan oo ay tahay ka mid yihiin diarrhea ay ugu caansan tahay ayuu leeyahay. baalkan loo yaqaano coccidiosisku wax factory ma gudbiyo, laakiin direct contact ayuu neefka usoo galaa, ama isagoo daaqa kasoo daaqo oo sadhoobay sida neef hore oo infected ahaa ama carrier ahaa, ama ma garanaysaa xoolo meel fara badan oo ku jira xero aan nadiif ahayn, siyaabahaasoo kale u qaada. inta badan waxa uu ku dhacaa young animalska sida lo'da, weylaha, xaraha, naylaha, kuwaasaa ugu badan. marka animalska la joogo ku dhaca ugu badan ee uu mushkilada fara badan gaarsiiya aasaartiisuna ay ka muuqataa. xoolaha waaweyn waa uu ku dhacaa, laakiin haddii aan wax kale u helin dhibaato fara badan kuma sameeyo. keliya waxa waxyeelaa keliya performance-kooda ama wax soo saarkooda kala duwan ayuu waxyeelaa haddii neefku uu carrier yahay, iyo other xoolaha kale sida whale oo kalena qaarkood ku dhaca, laakiin dhibaato fara badan isagana ma gaarsiiyo. kolka xanuunkani coccidioska la yidhaahdaa waa worldwide distribution oo dunida oo dhan maaha Africa oo keliya, waa worldwide distribution weeyaan. meelaha ugu badan bariga Africa lagu sheego waxaa kamid ah Tanzania, dalka la yidhaahdo Kenya, meelahaasoo kale xanuunkani waa uu joogaa, uu ku dhacaa xoolaha kala duwan oo mushkilad fara badan u geysta. marka kuwa uu ku dhaco tusaale ahaan kale waxaa kamid ah shimbiraha avianiska waa ku dhacaa, digaagu ha ugu sii badnaadaan kuwa uu ku dhacee oo weliba aada mushkilad fara badan u gaarsiiyo ayay kamid tahay. kaasi waa mid. marka xanuunkan la yidhahdo coccidiosku bacteriada la yidhahdo ama bacteria lena cafwan protozoan la yidhahdaa horta waa single celled weeyaan. waxaa awood u leeyahay bahalkan inuu ku noolaan karo hal year, baggiisu inuu joogi karo deegaanka hal sano qiyaastii inuu joogi karo, isagoo spoorkiisa iyo shal protective sameynaya oo ka celinaya magaranaysaa waxyaabaha sunlightka ay ka mid yihiin. marka waa bahal awood u leh inuu iska caabiyo heatka faraha badan leh iyo waxyaabahaas oo kale. xilliyada uu helo markaa 3 factor uu helo temperature iyo moisture iyo oxygen saddexdaa helana waxa uu noqdaa infective uu noqdaa. marka inta hore oo dhan oocytekiisu ama eggiisu ee uu deegaanka joogo, wax deegaanka uu joogo saalada ayuu ku jiri karaa, muddo badan halkaas ku qaadan karaa. marka neefkii dhulkii uu daaqo uu saraysnaa saasoo kale ayuu dabeetana kusoo qaadaa oo ku dhacaa oo xoolaha ku laaya. markaa coccidiosku sidaynu horu sheegnay waxa weeyaan waa interdisease, waa intestinal disease, kaas oo si gaar ah ma garanaysaa ay khatar u yihiin ama ay susceptible u yihiin kids and lambs kala duwan, riyaha iyo idaha hadday yihiin kuwooda, weylaha, kuwaasoo kale. waxyaabaha uu leeyahay waxaa kamid ah waa weakness, neef fara badan baa neefka ka muuqda, yacni marmarka qaar xumad buu yeeshaa, yacni ma garanaysaa astaamahaas oo yeesho. marka astaamaha ugu caansan oo kuwa malaria, inhibitocy, diarrhea waa astaanta ugu caansan ee xanuunkan uu leeyahay.
dhayryadaasi marka hore noqotaa dabeetna waxay isu bedeshaa marka dambe dysentery ama dehydration dabeetna neefkii haddii aan la daweyn sidaasuu markaa ku dhintaa marka dambe xaaladiisu oo neefkaasi markaa ku dhintaa sawirkan oo kale waa mindhicirkii neef dhintay mindhicirkiisii sawirkan oo kale dee aad u fiirsato tusaale ahaan oo kale laser hadaad aragto finankan yaree burburan ee ka muuqda finankan haddii aad aragto burburan ee bahalkan bay kor u qaadaan midasada horta dhammaantoodu wada finan baa ku yaala marka waa neef infect oo dhintay habkan oo kale neefku inta badan direct contact weeye deegaanka ayuu kasoo raacaa ground ama pasture ayuu ku jiri karaa muddo dheer uu ku jiri karaa egu oo developmentkiisa kusoo qaata ilamaa iyo uu ku noqonayo infect marka inta badan waxa uu ku dhex jiraa bahalkan saalada inta kusoo gudbaa oo uu xoolaha kala duwan ugu soo gudbaa yahay maxaa haddaba sababa sidaynu hore u sheegnay coccidioidka goat and sheep is caused by protozoa of the genuska loo yaqaano Inneria waa the most famous one Inneria species one of the most common species of the Inneria way fara badan yihiin laakiin kuwa ugu caansani waa kuwan weeyaan kuwa ugu caansani waxa weeyaan kuwan baa ugu caansan oo inta badan xanuunkan coccidioiska ku keena xoolaha kuwanina waa other species oo kale iyaguna kamid ah kuwa magaranaysaay idaha riyaha inta badan maqasha isku wada magaranaysaay kuwaas oo dhan ku dhaca waana most deadly sidoo kale inta badan waa ka ugu daran ee ku dhaca digaagana ku dhaca marka really waxa weeyaan waa ka ugu khatarsan specieskani ee sababa Inneria species marka la isku wada daro iyo kuwa hoos yimaada waana protozoa sida aynu sheegnay single cellular spore formula deegaanka joogi kara hal sano qiyaastii isagoo isticmaalaya protective layer isticmaalaya oo aanay magaranaysaa hiidka iyo waxaasi waxba yeelayn ayuu muddo ku qaadan karaa marka dambe direct contact neefkii uu wax quto ayuu deetana sidaa kusoo raaci karaa way marka inta badan ineeriyuhu way fadhidaa baa la yidhahdaa deegaanadan sub-saharan countrieska ee africa inta badan aad bay ugu dhaqan yihiin wayna joogtaan epidemiologically markaynu ka hadalno haddaba xanuunkani mortalitygiisu waxay gaadhaa Nigeria oo kale numberkan 96% ay gaadhaa xilliyada outbreaksku dhaco marka aad buu u sarreeyaa waxa badan inta badan u leedaha waa xoolahaas maqasha oo kale iyo kuwa yaryar haddaba cilmi baarisyo laga sameeyey deegaanadan kala duwan ee Senegal ay kamid tahay Kenya ilaa laga soo gaaro meesha laaba Botswana waxaa la xaqiijiyey in coccidioisku yahay xanuun muhiim ah laakiin subclinical ahaan isagoo ah marka taan ay wax weeyaan xoolaha deegaanada ku nool waa carrier xoolaha waaweyn inta badan xoolaha waaweyn markaynu ka hadlayno weeyaan waa carrier keliya muhiimadda uu leeyahay waxa weeyaan waa economic significance ayuu leeyahay oo xagga dhaqaalaha ayay muhiimadiisu ku kooban tahay marka xagga magaranaysa mortality taan ay wax weeyaan morbidity ayuu leeyahay laakiin mortality ma laha marka maadaama uu xoolaha waaweyn ku dhaco ee wax soo saarka laga filayo waxay taasi magaranaysaa khasaare weyn loss ay ku tahay in the small ruminant industry ama in the small ruminant production marka the only problem uu ku hayo dalalkaas baarista hostay wuxuu mushkiladda keliya uu ku hayo waxay tahay waxa uu leeyahay un dhibaato dhaqaale wax soo saarkooda hadday noqoto cadi caana labadaba kay tahay marka inta keliya uu leeyahay waa labada wax kale oo magaranaysaa dhibahu ku hayaa ma jiro waa laga yaabaa tusaale xilliyada outbreakyadu ay dhacaan oo kale in magaranaysaa outbreakskiisu ay aada ugu leedaan maqasha ugu leeato uu dhib fara badan u geysto laakiin really waa iska mildi oo waa carrier laakiin maadaama ay carrier yihiin dhibka ugu badan wuxuu markaa haystaa maqashii soo koraysay oo ka le-aanaysa oo markaa waxa laga yaaba in deegaanka soroobo oo xitaa ay daaqaan haddii digaag oo kale meeshay joogaan shimbira daaqaan u leedo oo ugaadha hadday joogto qaarkood gaar ahaan weel ruminants oo kale kuwaas oo kale dhibkiisu waxlaa ka imaado laakiin the most important uu deegaanadan u haya waxa weeyaan waa factor ah in uu wax gaarsiiyo dhaqaalaha iyo wax soo saarka xoolaha ruminantska ee deegaanada ku dhaqan laakiin ma laha other problem kale xilliyada tusaalehaan outbreaksku dhaco gaar ahaan idaha iyo riyaha oo kale waxa uu gaadhaa prevalencegiisu distributionkiisu waxa xanuunkan gaadhaa 40 ilaa 90% ayuu gaadhaa meelaha inta badan oo aadka endemic ugu yahay ee xanuunkan uu fadhiyo numberkan oo kale ayuu gaadhaa xooluhu haddaba xilliyada ay ku dhacayaan sideedu u gaadhaa sidaynu hore usoo xusnay waxaynu sheegnay in xanuunkani mar walba uu yahay waxa
in xanuunkan mar walba uu yahay waxa la dhaho direct contact macnaheedu waxa weeye inhalation ma jiro indirect ma aho factor ma jiro laakiin the only way that animals get this disease is to ingestion of contaminated feed and water habkaasunba ugu muhiimsan in xoolihii ay daaqaan geedo saroobay ama biyo saroobay sida tusaale ahaan meelaha biyo oo kale hadday noqoto darka marka darkii oo kale gaar ahaan waxa ugu sii muhiimsan meelaha harooyinka ama openka ee dadku ay ka wada cabaan dhulkan pastoralistiga ama meelaha kale dadku ay ka wada cabaan marka waxaa dhacaysa haddii xoolihi ay kaariyar yihiin xooli markay biyo ka cabaan meesha ay ku saaleeyaan kuwii kalena ay yimaadaan ama biyaha dhexdooda ay ku dhex saaleeyaan deetana ay biyo cabaan biyo u dhex galo kaasoo kale waxa weeyaan oo meelaha uu ku gudbo weyn waa rutiska uu ku gudbo marka through the water animal can get into the disease through the feed animals can get into marka waa labada meelood ugu muhiimsan oo kala sidoo kale waxaa xusid mudan no grazing lambs and critters can acquire infection from the infected adder's or the wool of the dams halka wuxuu leeyahay tusaale ahaan kale maqasha weli aan ababin laakiin jaqaya xilligaa hooyada jaqaya haddii hooyinkood ama xoolihii kale ee ay jaqayeen ay yihiin qaar infected ah kama qaadayaan sababtoo ah ma leh vertical transmission xanuunka vertical transmission isagu ma laha sidaa daraaddeed neef infected oo kaariyara caanihiisa kuma jiro walaa xitaa waxaan ku jirin dhabartiisa iyo wixii lamidka ahaa ayaan ku jirin marka saa ogeed maaha wadda ay ku kala qaadan karaan subclinically infected animals xoolaha tusaale ahaan haddaba waxaan isweydiinana halkan markaynu joogno sideebu haddaba maadaama aynu sheegnay in xooluhu xanuunkan ay ka qaadaan waxa la yidhaahdo deegaanka xanuunkan ay ka qaadaan oo deegaanku markuu sareysan yahay dabeetana ay deegaankii ama cawskii iyo wixii daaqaan dhulka daaqsimeedka u saroobo dhul daaqsimeedkii ay daaqaan sideebay maxaa sareynaya haddaba environment what is the source of the coccidios from the environment xaguu soo muxuu baxay sourciga sareynaya deegaanku si kale kuma saroobay waxaa ku saroobayaa as ay jiraan magaranaysaa subclinically infected animals xoolo subclinically ah meniscarial ah maadaama ay deegaankii joogaan they continuously shed the oocytes si joogto ah ayay magaranaysaa ugu daadinayaan oocytekii uga soo daadanaya isagoo soo raacaya through their faces shed oocyteka waynu tagi doonaa life cyclekan kuga sheekayn doonaa laakiin isagoo soo raacaya oocytekii ama eggii isagoo soo raacaya saaladii neefkii kaariyarka ahaa ayay deegaankii sidaa ku saroorayaan uncontaminate the environment marka neefku waa kaariyar markuu kaariyar yahay wuu saaleynaya digadiisi deegaankii u qaadanaysaa dabeetana eggii baa la socdaa eggii saasuu dabeetana deegaankii quite of sometime buu development ku qaadanaya waxay ku xidhantay inta badan faktarada aynu ka hadalna ee temperatureka ugu muhiimsan yahay muddadaa markuu halkaa ku qaato faktarada kala duwan ee magaranaysaay koriinkiisa iyo badbaadadiisa ku xidhan halkaa ku qaato then wuxuu u develop garoobayaa inuu noqdo infected marka inta badan actually markuu intuu oocyteka yahay waa non infectious weeyaan oo non infectious buu stageka taagay laakiin asuun uu helo faktaro fara badan ay kamid tahay temperatureka moistureka ay kamid tahay wuxuu isu bedelaa infective buu isu bedelaa oo neefka saasuu deetana kusoo gala hoostigii oo markuu mushkilay marka deegaanku ana muhiim saas u kulmay asuun uu jiro xoolo ah ama ha noqdaan weyl ha noqdaan ama ha noqdaan allahuma salli calaa maxamed kuwa aan weyl ahayn domesticated ha noqdaan asuun ay yihiin carrier animals that yacni joogaa magaranaysaa grasslandkii ama dhuldaaqsimeedkii communityga ka dhexeeyey ee dhuldaaqsimeedka ahaa markastoo ay meesha ku degayaan saas wax ku qaadanayaan oo ay ku qaadaan faktarada kale waxaa kamid ah iyaguna muhiimka overstocking xoolaha oo ka badan dhulkay daaqayeen ama xeradii ama hayn stock overstocking macnaha waxa weeyaan waa number xoolaa oo aada u tiro badan oo ama meeshii communal grazing landka ahaa jooga oo ka badan oo dhulkii macnaha xoolii baa kala badan ama xeradii ay ku jireen hadduu ahaa intensive system xero yar ay xoolo aada u fara badan ku jiraan taasoo kale markay xooluhu farabataan ee meel yar ku jiraan waxaa kor u kaca markastoo stock uu bato ama markastoo animalka uu ku farabato meesha sidoo kale waxaa kor u kaca in ay khatar u galaan xanuunada faafa ama xanuunada tusaale ahaan la isqaadsiiyo si kastoo ay isku qaadsiin karaanba ay khatar u galaan taa macnaheed waxa weeyaan labadan waxaa ka dhexeeya factor labadan factor associate baa ka dhexeeya associate muxuu yahay one of the number of animal increase in the grassland or in the area that they staying markastoo ay ku farabataan xooluhu meesha ay joogaan ama ha noqoto dhul daaqsimeedka ama ha noqoto xerada sidoo kale waxaa kor u kacaya
xanuunadii baa iyaguna sidoo kale kacaya faafa. Waxyaabaha kale muhiimka waxaa kamid ah poor hygiene ka kamid. Poor hygiene-ku waa factor muhiim ah oo ay ka mid tahay weliba factorada ugu muhiimsan ee faafiya xanuunkan coccidiosis-ka la yiraahdo in animal. Waxyaabaha kale muhiimka waxaa kamid ah stress factor-ka kamid ah such as waning inclement weather oo ah cimiladii aan wanaagsaneyn sida dhaxan kulayl kaasoo kale. Xoolaha confinement ku jira ee xareysan yani hadda intensive system-ka oo kale oo kuwa badan aad ugu badan yahay coccidiosis. Waxaa kale oo sii kor u nugleyn karaa ama susceptible ka dhigi karaa isagoo neefka carrier amaba tusaalaan carrier ahayn laakiin deegaanka halkii uu joogo intercurrent disease that precipitate the occurrence of the clinical disease. iyaguna qayb bay ka noqdaan xanuunada kale ee secondary-ga ah ayaa sidoo kale iyaguna waxay yihiin factor muhiim ah xanuunka qayb ka ah. Clinical coccidiosis inta badan frequently encountered in intensively managed work. inta badan xanuunkan waxaa lagu arkaa uu ku badan yahay xoolaha xareysan marka la barbar dhigo kuwa extensively managed kuwa iska daaqaya fooftaga mar meel lagu sii daayay dhulka waxay waxaan leeyahay ka helaan caws iyo biyo ay ka helaan ka soo daaqaya freely u daaqa marka la barbar dhigo kuwa intensive ka mar ku badan xanuunkan. haddaba waxaan doonayaa halkan inaan kaga sheekeyo actually life cycle-kooda. life cycle-ku somehow waa heer critical markastoo aynu isla fahanno wuxuu sameynaa markuu hostigii soo galo in uu ugu jiro intaasoo stage uu neef ku jiro ama sporocyte ha noqoto from sporocytes ha noqoto ama trophocytes ha noqoto ama schizencephaly ha noqoto ama ha noqoto inuu isu bedelo maxaa la lahay merocytes uu sii bedelo dabeetana merocytekaasi uu sii qaybsamo oo uu markuu halkaa marayo laba hab kala noqdo markuu stageka dambe joogo mature noqdo very mature noqdo laba hab unbuu noqdaa. kow inuu noqdo sexual reproduction oo male iyo female noqdo ama inuu asexual noqdo oo koogo labadaa hab oocyte buu kusoo dhacaa. intaaba waxa uu ku jiraa gidaaradan ama intestinal walls ku jira marka wuxuu feeding buu sameynaya intaa uu feeding ka sameynayo waa intaa haddii neefku difaaciisu aad u liito kale ay factoro kalena uu heliyaan deadly disease xilligaas oo kale noqdaa oo waxaa bay noqotaa haddii aan laga daweynin ama laga soo gaadhin oo ay xidhno kalena u heliyaan in neefkaasi uu dhinto. marka species kale life cycle-kan waxa weeyaan in life cycle. maxay yihiin what are the predisposing factor? predisposing factorskaasi aynu kaga hadlayna waxa weeyaan maxaa dhaca ama u fudeeya ama u gogol xaadha si xanuunkan uu dhaco. Coccidiosis is like to become more important disease of small ruminant in sub-Saharan countries in the future as increasing land scarcity. factorada ugu muhiimsan ee sub-Saharan country waxaa kamid ah mustaqbalka waxa kordhiya ama waqtigan ku jirnaba in systemkii xoolaha loo dhaqan jiray meelo badan la bedelay oo loo bedelay intensively managed system meelo badan ay beero fara badan ka hirgaleen oo magaranaysaa system agropastoral taas waxay keentay marka inuu dhaco land scarcity. land scarcity-gaasi markii dadkii ay systemkii hore ka guureen dhul yari dhacday waxaa dhacday dhul daaqsimeedyadii ay noqdeen dhul ama dowlad leedahay mashaariic ka socoto ama beeraleyno dad ay ka socdaan dhammaan waxyaabahaas oo dhani waxay magaranaysaa ay keeneen oo dadkii ku khasbeen in dadka ay adapt gareeyaan nidaamkan leedahay intensively managed system. marka factor hab nidaamkaa laga guuray ee loo guuray intensively managed system waxay ka mid yihiin waxyaabaha predisposing factor-ka ah waayo xoolaha intensively managed-ka aad buu ugu badan yahay ee xareysan marka. factorada kale waxaa kamid ah sub-Saharan countries waxaa kamid ah temperature oo kale meelaha temperature aad ku kulushahay waayo wuxuu u baahan yahay baalkan temperature sare oo 22 ilaa 80 gaadhiya cimilada ay taagantay waxa u baahan yahay moisture ama humidity waxa u baahan yahay oxygen tension fara badan. These are the main factors that contribute the survivability development of the coccidial oocytes to be infective stage. marka saddexda factor xilliga uu baahan yahay wax weeyaan waa xilliga uu eggu yimaado in the outside of the host uu ka soo baxo outside of the host markuu yimaado weeyaan ee environment ka yimaado saddexda factor xilligaas uu baahan temperature-ka moisture-ka oxygen-ka muxuu uga baahan yahay saddexda factor hadaba waa inuu noqdo infective stage gaadho haddii aanu saddexda factor helin ma noqonayo infective stage ma gaadhayo then waa inuu helaa saddexda factor time waqtiga uu helo wuxuu diyaar u yahay inuu noqdo infective stage marka wuxuu ka guurayaa xilligaas oo kale from unspirulated to spirulated stage and then is ready at that time to get into host dadka waxa kala kasbaa optimum temperature-ka uga baahan si uu spirulation u sameeyo in area kale waxa weeyaan 28 ilaa 21
while temperature ka hooseeya -40 ilaa above 40 celsius 40 celsius temperature noocaas -40 ama wixii ka hooseeya 40 -40 oo kale ah iyo wixii ka sarreeya 40 considered to be lethal could be dangerous to the egg egga taasoo kale kuma fiicna waa dilaa bay ku yihiin marka ma aha necessary in ma garanaysaay ay kaasoo kale dhacda faktaradaasoo kale in la helo si aanu coccidiosis-kani u noqonin mid faafa oo ma garanaysaay xoolaha aada u laayo eegu hadduu markuu noqdo spiralated oocyte ama markuu noqdo mid ma garanaysaa dilaa markuu noqdo cafwan markuu noqdo mid infective markuu noqdo waxyaabaha uu leeyahay awoodda waxaa ka mid ah inuu heatka oo kale resistant la sameeyo ama iska caabiyo desiccation dryness oo kale inuu iska caabiyo waxyaabahaasoo dhan waxyaabaha ugu muhiimsan marka xilligan oo kale abt waxay ku qaataa inuu noolaan karo 10 months oo ku jiri karo fecal sediment uu ku jiro saaladii wixii la midka ahaa uu ku jiri karo oo xilligaas oo kale resistant la yeesho iyo mochigi marka that's okay sanad buu xitaa gaadhaa oo ay ku qaadataa ma garanaysaay inuu ma garanaysaa dee xaaladdaa ku sugnaan karo hase ahaatee laakiin cadceedda saaran sunlightka direct sunlightka oxygenta oo hoos u dhacda oxygen tensionka hawada ku jira hoos u dhacda dhammaan faktaradaasi waxa weeyaan waa detrimental ama harmful bay ku yihiin to the oocytes marka laga hadlayo in terms of the development and survivability of the oocyte kuwaasoo kale khatar bay climatic conditions kala duwan ee meelaha humid tropicska are favorable for the survival and development of the coccidial tropea inta badan meelaha taalaan tropics oo kale humid fara badan maadaama ay leeyihiin waa uu ka faafitaan ogyahay aad buu ugu faafaa aad buuna ugu badbaadaa aad buuna ugu koraa oo diyaar ugu noqdaa inuu infective state noqdo marka kaasoo kale that's okay waa magaranaysaa in uu ku faafo oo transmissionka halkan transmission muhiim oo kaga hadlaya mid kan transmissionkiisu mar walba waxa weeyaan route ugu weyn ee uu ku faafaa waxa weeyaan waa direct contact marka direct contactigaasi waa inuu neefkii daaqo cawskii oo infected ama saroobay ama biyihii oo saroobay labadaa ayuu ka qaadi karaa ma jiro other direct ma jiro factor gudbiya ma jiro maxaa la dhahaayay wax kaloo ka qayb qaata marka habka ugu weyn waa kuwa halka hadda waxuu ka sheekeeya keliya waxa weeyaan ugu soo celinaya waa habkii magaranaysaa life cycle-kiisii horu kasoo sheekeynay ayuu ka sheekeynaya marka tusaalahaan kale wuxuu leeyahay the unspiralated oocyte are voided interface waxa uu ku jiraa uu ku dhex jiraa saalada xoolaha ayuu eega ku jiraa of infected host kaasoo ka yimid tusaalahaan neef bukay xilliyada markaa u yimaadaan waxa weeyaan under the optimum condition of temperature optimum suuragala macquula marka xilligaasoo kale markay gaadho optimum condition of temperature suitable oo 20 ilaa 30 gaadhaysa moisture oxygen tension markuu helo they spirulate they change to become infected marka muddada waxay ku qaataa 2-5 days in isku bedelo xaalada waa laakiin waa goorma waa markuu saddexdaa factor helo temperature suitable moisture oxygen tension markuu saddexdaa factor isla helo ayuu ka guuri karaa unspiralated oocyte oo una guuri karaa spiralated oocyte haddaba eggii infective ahaa neefkii ridii ama idihii saasay ku galaan dabeetana wuxuu isu bedelaa gudahooda markuu galo waa markuu gudaha galo hostigii ayuu spirocytes isu bedelaa intaana wuxuu ku jiraa intestine-ku saad la socoto wax weyn waa the target organ mar walba coccidiosis ay jecel yihiin perform other than other tissues kale spirocyte-kii wuxuu sii dhex galaa marka intestinal wall ku tagaa muxuu u tegayaa for feeding feedingkaasi waxay ka caawinayaan inuu isu bedelo trophocytes trophocyte-kaasi wuu sii qaybsamaa deetana wuxuu noqdaa neurons ama skincentis dabeetana skincentahaasi rupture wuu dilaacaa xilligaasoo kale wuxuu diyaar inuu sii farbato wuxuu sii daaya neurocytes which infective kuwaasoo noqda infect new intestinal wall cellska cusub ee kale ama kuwa la repair gareeyay dib soo baxay ama kuwa kale ayuu waxyeelaa marka xilligan oo kale markuu joogo labun buu noqdaa inuu noqdo asexual labuu kala beeya markuu stageka taagay inuu asexual noqdo hadduu asexual noqdo magaca schizogeny ama inuu noqdo sexual oo noqdo gametogeny labadaas development baa dhaca dabeetana labadaa development mid ahaan baa waxa soo baxa oocyte during the gametogeny microgametocytesku and microgametocytes develop into a
gametites and microgametes respectively labadaas uu guraa marka wax kale ma hadda tan fertilizationkii baa dhaca waxaa soo dhaca cycle oo zygote are produced when the host cell rupture the oocytes are released into intestinal lumen baa la yimaadaa and then passed out into this mar hadduu halkaa yimaado intestinal lumenka markuu yimaado wuxuu diyaar u yahay inuu deetan usii gudbo kaadidii uu sii raaco physics uu raaco deetan sidaa dibadda kusoo the average prepatent period haddaba wuxuu leeyahay muddo uu incubation period galo imeeri oo kale ama kusi muddadaas waxa weeyaan 2-3 weeks way kala duwan laakiin variation baa jira variation prepatent period yani variation wax kale ma waa incubation period ay leeyihiin bartiwaha inta badan ay leeyihiin qaar waxay qaataa 5 ilaa 20 bay ku qaadataa inay ku jiraan prepatent period halka qaar kale ay gaadhaan 20 ilaa 33 days ay ku qaadato way kala duwan most of them waxay leeyihiin host specific bay leeyihiin cross transmission between the host really ma dhaco pathogenicity wuxuu la xidhiidha habka aynu kasoo sheekayno muhiimad badan male inta badan isagu saddex neex xanuunkan darnaantiisu ama severity-giisu waxay ku xidhan tahay qodobada waxay ku xidhan tahay developmental stage baalkaasi taagan yahay parasite-ku gaar ahaan area-da uu soo galo waxyaabahay u baahan tahay waxaa kamid ah the number of oocytes ingested tirada egg ee infective-ka ah neefku laqay ay ku xidhan marka hadduu mid laqiyo hadduu laba laqiyo hadduu saddex laqiyo way kala duwanaanaysaa waxaa taa weliba kasii daran specieska imeeriye ah ee neefkana uu qaatay tusaale ahaan kale waxaa laga yaabaa goatka qaar bay susceptible yihiin riyahoo kale qaar bay susceptible yihiin kamid ah imeeriye idahoo kale qaar baa susceptible yihiin oo laayo lo-doo kale qaar bay susceptible yihiin waxaa laga yaabaa qaar markaa riyuhu si khad laayo oo ay deadly ku ah oo aada u dila in haddii idaha uu galo oo waxyeelo badan aanu soo gaarsiinin marka taasoo kale waa factor muhiim ah bariirku age-ka neefku ku sugan yahay inta badan waynaga sheegnay kuwa yaryar xoolaha maqasha ayuu aada u laaya bahalkani waxyaaba kale muhiimka waxa weeye immune status of the host xilliga uu ku jiro marka macnaheedu waxa hadduu neefku yahay carrier ahaa xubno kale tusaalahaan ay u heleen oo mushkilad kale jirto oo stress factor jiro inuu severity-giisa isbedelay waxaa kale muhiimka location of the parasite in the tissue halka uu kaga jiro marka way kala duwan tahay hadduu adagtii ay taraga organkanada kale si ay taraga sida calooshoo kale uu ku jiro iyo hadduu intestine ku jiro way kala duwan tahay number of cells destroyed determine inta cell dhintay waxay mar walba determine garayaan sabab ay yihiin severity of the disease waxa weeyaan waxyeelada neefka gudihiisa gaarsiiyo ayay darnaanta waxay ku xidhan tahay xanuunkan in neefkaas uu dhinto in dhibaato weyn soo gaarsiiyo marka inta wuxuu dhibaato weyn u geeyaa intestinal mucosa oo meesha uu quuto waxayna sabab markaa second generation neurons waa groupka labaad ee waaweyn kaasoo isaguna bixinaya inuu sexual state gaadho ama sexual state oo uu soo saaro neurons markaa burburiyo inta badan intestinal wallki uu burburiyo aada ugu qunto marka dambe wuxuu burburiyaa capillariaska uu leeyahay intestinal mucosa and this may lead to hypoproteinemia and anemic oo markaa baalkeedo anemia ku soo kale ee qudashada la sameeyo inta badan xoolaha waaweyn oo kale iska caafiya aanu dhibanin ayaa anemiyada inta badan caan ku ah secondary bacterial infection kaano kor aan ka severe enteritis yana way u raacdaa waayo in intestine-ku waa meelaha inta badan bakteeriyooyin fara badan baa waxyeelay ay kamid tahay salmonella kamid tahay coriobacillus qaar fara badan baa jira marka kuwaasoo kalena way weheliyaan inta badan the change in the intestinal mucosa cause tusaalahaan kale isbedel baa ku dhaca marka kale markuu xanuunka gidaarada aada u quuto wax isbedel peristaltic movement-kii barashadkii cadaadinayay ee magaranaysa ayay wax ka saarayay meesha isbedel baa ku dhaca taasoo kale khalkhal buu markaa galaa marka u dambeysa dabeetana waxaa dhifan garoobo malabsorption diarrhea diarrhea is followed by dehydration ayaa ku xiga acidosis acidosis anemic ilaa terminal shabu gaaro dabeetana dhimasho neefka haddii la daweeyo coccidiosis inta badan mainly waa kala daban waa kilis and lambis da-dooda ay tahay 4 up to 6 months of the age and adult animals the disease is usually waa kan isagu waa mild wax dhibaato male calaamad muujiyo just waa carrier kaliya marka the only problem-ka uu ku hayo waxa weeye waa laba kow inuu performance neefka hoos u dhaco laba inuu deegaanka shaqeeyo haddii tusaalahaan xanuun kale u yimaado other infection waa weheliyu noqonaya markaasoo kale inuu isna severity-giisii darnaado hadii dhibaato badan difaaciisa hoos u dhaco the clinical disease can occur when young and non-immune animals are exposed to a massive change with paralyzed oocytes waxaa inta badan halkan ku sheegayaa tusaalahaan oo kale marka uu dhaco xanuunkani waxa weeyaan xilliyada the clinical disease can occur waxaa ku dhici kara when young and non-immune animals are exposed to massive markuu neef yar ama neef xoolaa oo non-immune animals
ama immuunkiisa aada u liito ama xanuuno kale haya ha noqoto ama neef aada u yar ha noqoto ama neef weyn ha noqoto xanuuno kale hayaan taasoo kale hadday soo galaan tusaale ahaan qaar fara badan tiro badan oo egg infective ah hadduu soo galo markaasoo kale mushkilad fara badan baa isagana ka timaada waxaaba dhici karta inuu neefkaasi u leedo oo u dhintaan xoolahaasi ayaa yana muhiim clinical riskiisa haddaba waxaa kamid ah diarrhea kamid ah neefkii magaraysa diarrhea hadday timaado neefka uu fuuq baxo diarrheadiis waxay ku caan tahay inta badan bloody dhiig baa la socda awoodii neefka hoos u dhaco dehydration yimaado anemic neefkii noqdo inaccurate disease there may be a fever ayaa yimaada ocular nasal discharge in magaraysa indhahoo kale ilma ka timaado duufka neefka do subclinicalka markuu yahay keliya waxa uu leeyahay neefku umateed lasa wuxuu noqdaa magaraysa appetite buu noqdaa neefki loss of appetite buu noqdaa buur weyn awoodiisa hoos u dhacaa sababtoo waxba daaqmaya wixii u daaqayna waxaaba la quudanayaa bahalkan baaba la wadaagaya nafaqadii aneegu noqonaya poor food utilization tusaalahaan oo kale conventional food kaasoo kale inuu noqdo poor fair buur noqdo laakiin bahalkan coccidius waa self limiting disease jirka ka takhalusa haddii neefka caafimaadkiisu yahay just okay hadduu yahay oo aan wax dhibaataayo ku jirin oo kale uu helin xanuuno kale yani aan u helin halkaasaynu kaga gudbinaa markaa sawirkan oo kale wuxuu muujinayaa neef yar oo diarrhea fara badan ay ka muuqato that could be a sign of coccidius ayaan karnaa ama yahay treatment and control treatmentigiisa tusaalahaan dawooyinkiisa ugu caansan inta badan oo kale kamid ah dicognate kuwan oo kale sulfonamides waxaasoo kale leedahay amrolimunium in feed weliba lagu daro is also used to treat the disease in goat nitrofurantoin given orally and is also effective other drugs include monazine ayaa kamid ah oo inta badan feedka lagu daro dhammaan dawooyinkaas oo kale could be effective if they are available in the market and I don't think that they are available at the current time in our country and other anti magaranaysa ayaga horta suwan kala oo dhani waa effective sida haddaba loo controlaya the most important thing waxa weeye in coccidiostatis lagu daro coccidiostatikaasi egan ku jira feedka neefka ayaa lagu daadinaya ama biyaha ayaa inta badan loogu daadinaya marka waxay ka dilayaan oo ay ka clean garaynayaan xalaaliya wixii protozoan ku jira qodob kale waxa weeyaan in nadaafadii kor loo qaado xoolaha tusaale ahaan ku jira meesha nadaafadda kor loo qaado meeshay ku xariisan yihiin xoolaha intensively managed tahay it could be minimized the predisposing factors and it could be also important factor to consider in la control strategies aad develop garayso ama strategiyaad ku controleyso coccidiosis iyo other diseases kale neefku inuu helo cunto daaq ama caws nafaqo leh inuu neefku helo it is also important marka neefku inuu nafaqo helo oo neef nutritionkiisu wanaagsan u noqdaa enhance promote ay kor u qaadaysaa the resistance of the animal to the coccidiosis halkan keliya waxaan dul maraynaa un trypanosomias trypanosomias wax badan ku bixin mayno waa maxay trypanosomia trypanosomia waxa weeye waa xanuun dhilibaakin ah oo inta badan dilaa ku ah xoolaha miskiin dhib weyn ku haya dilaa ama marka badankiisa of animals which also characterized by parasitemia parasite markuu sidaad la socotaan trypanosomaha dugsiga laga dhigay saddex laga qaada marka dhiigu raaca deetana waa kan parasitemia in parasite that are present in the blood intermittent fever xuma soo noqonaysa anemia loss of condition xaaladii neefka oo lunta sida weightkiisii performancekiisii iyo active productive tissue oo hoos u dhaca dabeetana mortality marka maxaa sababa waa protozoan ah hemo flagellate protozoan markaa trypanosoma species way farbadan waana cause ugu muhiimsan ee sababa waxa ugu weynaa qaadana waxa weeyaan haddaba waxa ugu weynaa qaadana waxa weeye waa factorka marka waa in la control هي هدبة تربونسوما وحنون فاكتور بون ديسيسا بروتوزوا دوكسيغاسي waa bacteriaris ku jirta sidoo kale parasite kana waxa weeyaan waa parasite laftiisu dhiigga quuta dila xoolaha mushkil fara badan ku haya oo fatal disease saa daraadeed si looga hortago waa in xoolaha magaraysa control la soo dhaca kamid meelaha banaanada ay la geeyo dabayshu ay ka dhacayso marka dhulka hadduu meesha jooga duqsigani factorkan factorka way xarun ka sida waa in meel bannaan ah xoolaha la daajiyaa ama tusaale meelaha idaha oo kale laga ilaaliyo in laga buufiyo in meelaha breeding siteska sidoo kale laga laayo oo iyadoo lagu buufinayo ama meelaha u dhigto lalaalka oo kale breeding siteska sidoo kale la dhigo dhulkaas oo kale factorka la buufiyo
faa'iidooyin weynna wuu leeyahay kuwaasoo kale la isticmaalo. Halkaas baynu isku taagnaa. Aad baa u mahadsantihiin. Sidoo kale markaad videogan dhegaysato waxaan jeclahay inaad ila wadaagto wax alla wixii feedback ay kasoo noqda ama aad fahmi weydo. Any format ay isku heli karno mostly halka ugu badan ee aan igula wadaagi karta feedback waa inuu noqdaa Google Classroom-ka. Aad baa u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum.